markii laga dhamay xagaagii iyo xasuus baa geela lagu xirgeeyaa Cumar Dhuule Cali waa kan waa fanaanka run ahaantii caanka ku noqday marka adeegto garaacida cuudka nasiib ayaan u yeelanay daawadayaal inuu dhamaantiinba idin raho Cumar Dhuule Cali waa aniga oo idin salaamaya oo leh maxay sheegteen ma wanaagsantiin aad baan u wanaagsannahay jawaabta daawadayaashuna sida tan ayay tahay Cumar nasiibkiisa iyo nasiibkeena iyo nasiibkooda dadka daawadayaasha aba waxa uu gacanta ku hayaa cuud had iyo jeer ama kaman qof walba sida uu hayo laakiin intayada qarjajaaska ah ayuu markiiba ku furay musigiisa iyo macaanka heesaha Cumar waxa uu ku dhashay magaalada Burco wax had iyo jeer xifaalo ana isweydiinteeda ha noqoto waa imsi jir baad dadku badan ama jecla su'aasha kadiska ah laakiin kulli nin weyn uga soo qaad Idris nin weyn Cumar weeye Cumar waxa uu bilaabay fanka iyo suugaanta waqti inta aananse waqtiga sheegin Cumar fanka ma waxaad u leedahay hidda iyo dhaqan ma adigu baa eebahiba ku siiyay mise qoyskiina ayaaba arinta tan mid runtii aad ka dhaxashay Idris aabahayba fanaan ahaan jiray tumi jiray heesis jiray eriyada samayn jiray marka markuu dhintay laasim booskiina qabtay la noqotay halkii meel noqotay Dhuule Cali Dhuule ma xasuusantahay marnaba ileen waad sidaynu labadeenu waynu aqoon fara badan baynu isku leenahay adiga oo yar buu aaba dhintay marnaba ma ka xasuusantahay mar uu ku kaxeeyo gacanta ku qabtay isaguna u gangimtay inuu tago aroos ama meel laga tumay anoo yar baan xasuusnay aroos hawd maxamed xaaji raaciga arooskiisii laga dalbay oo isii kaxeeyay waa arin cajaa'ib leh taariikhduna waa dhaxal Cumar Dhuule hadaba inta aanan wax kale u gelin sanadku markuu ahaa ama 13 jir isaga oo ayuu fanka bilaabay markaas uu kalgacal fara badan oo fanka weeye aawadeed ayuu gaadhay in aan waxyaabaha qaar ku wadato kamankan uu hayo marka adeegto heesuhu waxay ku soo baxaan guud ahaan marka aan qaato inta aan ka ogahay 9 xadhig adiga iyo Xudeydi ayaad seed moodaa in dhowr iyo 10 xadhig ka tumataan 12 saddex baadna dheerta sidaas dirteed Cumar ma xasuusantahay waxba heestii kuugu horeysay wax ma iga sheegi kartaa heesan idaacad ka qaado isku shuban balira Cabdullaahi Qashaa sameeyay Allah yardi tii igu horeeyay adiga iyo dadweynaha waan maqashinay waad maantay على فضاء سيدا وحيدي صدقيو على فضاء سيدا وحيدي إيسيك تايسامو كله لهوي إيسيك ساتري سيدي ودنتاي ويلها ساتري هوي هوي سيدي ودنتاي عذن كسالو غمو سيني عذن كسالو
sugolay musimimayo samirku waxbay maso sigoy samirku waxbay maso sigoy sabciina u dhaxay safkay tahayo waan suryey wadaa dasaafiraho saraydan u tegay sitaad ka tunto salligan qaadayso uradaha nebigo haddana segaytan usaahidaye haddana segaytan way usaahiday marka aad eegto run ahaantii marka heesahaasi la qaadayo anigu sidaan isku lulaaya madaxahaan ismaan ogeyn daawadayaashuna sidoo kalean malaynaya laba baydun bay arrin ahayd inaan qaadno laakiin isilowshaha ayaan siri dadka odhan doona war afka alla qabe muxuu nooga joojay waanse malaynayaa inaad adiguna sidaa kale cumar haddii aan qaato waxa uu riwaayad ahaan u la dhigay riwaayadii ugu horreysay kooxdii la odhan jiray walaalaha hargeysa cabdilaahi qarshe ka mid buu ahaa xuseen faarax ka mid buu ahaa maxamed axmed ka mid buu ahaa ina magaalo xumid ka mid buu ahaa anigan cumar oo matalayay gabadh sidaasi weyn marka aad arrintaasi haddaba qaadato cumar intaasi kuma uu joogsanna waxa uu yimid magaalada Jabuuti waxaanu ka dhigay riwaayadaasi walaalaha hargeysa oo tii ugu horreysay ahaa isaga oo gabadha sinemaha imika loo yaqaan ama waqtigaaba la odhan jiray sinema odiyo halkiisii miska iyo cumar ma hormartay waan tegey ma xasuusata aad iyo xoog sida oo kale haddaba idaacadda nafsigeedan ka shaqayn jiray waa sidaas cumar markuu riwaayadaasi dhigay way ka ambabaxeen dalka waxaanay tegeen magaalada cadan oo iyaduna ahayd meelaha fanku sida walxaad kale uu uga soo qaadan jiray cumar muu ogeyn halkaasi waxbaa qabsan doona waa kalgacalkii ugu adkaaba cumar halkaa ka helay umaanse tagayo inta dambe aan soo yara laabta taariikh ahaan cumar waxa uu qaadaa hees kale oo aad u wanaagsan aniga qudhayda iyo inta ilada ihiin ay jeceshahay dadkuna jecel yahay waxay tahay heesta horeba way u jirtay waa jawhar luula laakiin sibuu u tumay bal cumar sidaad u tuntay u tum
ودادا ليديبيو نابلين ودوا دادا ليديبيو أندبي iyo darantegayo dayurado laygu doonayo sidii dahab laydawariyayo aan dabiibkaga diqadgeliyayo ku didoonana ka dulboogayo waa jacaylkaye tanu jiirgo'aye alla janoy aawada ma jiibsado hawteegayaa labsadayo na baabuur hawteegayaa labsadayo habeenkida horuu sii hoydo ka hawidhi hirti waa berigo harkii maalinimo hadday tahay galool harda carne hoos galayo halkanaca barku yara hakado sidii hatuf kii waxbay la hadlo hareertaydan eegayoon qadoon halleeyey kan sitooydilo ayaan hawte gayahaybsadayo horow soco bay dhahdeenu ku soo hirtay ugunkii reeraha hoosaanu waa raystay hoygoodo kamaan heelintaanu hawlgalayo waa jacaylkaye tanu jiirgo'aye alla janoy aawada ma jiibsado qatan kela qawan yahiyo dharartan qorra tiyo qulan jamaqnayn ku daydad goysay balagu qabano malaa'igta qalinka loo dhiibiyo ilaa qadirina wax qarimayo naqilaad ku bax danabkuma qorre qowlka badla horteegii qiyaamaha layga ka qaadiyo layna kala qariye alla qacdan ku arkaan isqoonsaday cumar marka aad heestan qaadaysay aanu adigaan ku eegayay ninka laakiin qaybta farsamada kamarada waxaan malaynayaa in aan is-ilaabay sida dadkaba isku ilaabeen aan qadar taariikh ahaan bal haddaba aan sii qaada cumare markii uu cadan tagay ka yimid cadan waxa uu yimid magaalada hargeysa anbabax laakiin maxaa cadan ka qabsaday halkaasay joogtay sheekii waxaad maqashaa gacalo waxay ka bilaabantay wakhtigaasi cadan waxaanay ahayd gabadh uu ka jeclaaday ama ay isjeclaadeen cumar se ma ogeyn markaasi ileen gacalaba waa tii eebba isku qoray cumare xaaskiisa min weynta ama xaaskiisa ayaybay ahayd oo xawo ah anigu waan garanayaa markaasi ayay iyadu ka timid cadan waxay timid dabadeetana magaalada hargeysa intaynayse taasi dhicin cumar waa waanba baxado waxaa jirta inuu tegay magaalada gaalkacayo isaga oo markaasi u jeeda meel muqdisho ayuu tagayay waxa uu muqdisho ku guursaday cumar gabadh iyaduna heesa ahayd oo idaacadda ka heesi jirtay oo la oran jiray Faaduma Kenya
gabadhii dhaqan ahaan muddo wada jooga Cumar markiisa uu gaalkacay tagay halka waxa laga qaadan jiray warqado lagu tago dalkaasi iyada oo markaasi warqado loo kala qaadan jiray min la doonaya arrimo badan ma dhibiyara laqad Cumar lana gee goobtaan garanayna ee Muqdisho ka sayimid Cumar intaan taa u tagin halka aan joogsado markii aad Muqdisho tagtay waad soo noqotay intaan taa u iman tukala jirtay iska timi lixdamaadkii sanadku ku soo noqoy la waaweynaa cid waliba garatay gacalana isa soo maqiiqday adigoo la sugay maxaad qaad
garnaqo anigayo kaxaladay hanado garnaqo waxaan diidayaa doqonnimadiyo hiboy dalaasigeen waxaan diidayaa doqonnimadiyo hiboy dalaasigeen waxaan doonayaa nolol daacadiyo isku duubnideen waxaan doonayaa nolol daacadiyo isku duubnideen doorbaan bidee ama ila dadaal ama haba degtee dunida bulbul waxaan diidayaa inanka turkoon sida dawri ardibada mare waxaan diidayaa inanka turkoon sida dawri ardibada mare waxaan doonayaa dawadaydii inaan ka tugsado nacab daaline waxaan doonayaa dawadaydii inaan ka tugsado nacab daaline doorbaan bidee ama ila dadaal ama haba degtee dunida bulbul adiga oo kale lama abuurine naa meeli olooshaad in ku reebtee nahoy mala ammaantayd waabad eedo ereyadaydaad amarka qaade nahoy ereyadaydaad amarka qaade aramidayda nayahoy aramidayda wad u aysee inan ragwaa kii adkayste kaa uuraday carab iyo labadiisii daan ba isqaniine maxaad seed u malaysay fanaanka cumar dhuule cali waxaa jirta taariikh ahaan qadar marka aan qaato haddaba inta aan ka ogahay cumar weli intay xaaskiisa isqardoofeen marnaba looma soo maslixin laakiin waxaa had iyo jeer saddexayn jiray oo ay cumar iyo xaaskiisa waxa saddexaad ahaan jiray kabanka iyada unbuu la dul tagaa qaladkii uu sheegtay labadooduna goobta isku sheegaan waana laga yaabaa inay oohinaba meeshaasi ka dhalato dad badan baa yidhaaha markay heesahaaga maqlaan cumar waxa uu heesaa un sidaa hiblaayo midnaba maaha gacalan waa taan sheekadeeda ka sheekeeyey laakiin sheekaa jirtay kaloon iyadana wax ka ogahay anigu haatan iyo danna ila heshii sidee u dhacday anaa garanaya cumar miyaad iiba sheegi waa tii sheeka jirtay waagii waa yahay waxaa dhacday cumar in ay xaaska is afjeedheen oo mahmahdaydii ugu horreysay ay ahayd markaasaa waxaa dhacday xaaskii gacalo ayaa duday
waxay ku duday isaga abtigii waxa uu isku dayay abtigii Cumar inuu qoondaal soo qaato u dabadeetana ay arintaasi dhagax dab lagu dhuftay ay arinta u muuqato Cumar wuu iska aamusado intuu kabankiisii saddexaynay qaatay buu yiri albaabka u garaacay odagii oo cadhaysan baa yiri abtigii waa kuma waa Cumar buu yiri lan Cumar kollaba isagu iska ogaayay gacala way maqashado iyadu cadhadeedii halkii bay afka sii buurtay odaygii baa yiri waxaad samaysay guriga ay dhaaf Cumar arinayso sidaas ma ahayn abtiidaan waxa yar wax hadalabaan wax dhibaataagiisa ma yahay kama kaga iyo gacaladeeda isu ka yeerataa ogolaa odaygii iyadii oo sariir fadhida ayuu Cumar dabadeetana hees qaaday leeyahay gacalo oo hintii halka ka dhacday indhaha masku yar qabana Cumar marun halabo hoy duni hagaagsan la heli maaye ruuxi habboonba marun halabo naa duni hagaagsan la heli maaye hatani yodana ilaahi هذا المعاني هلا ونادي هذا المعاني هلا ونادي إلهي شيء ما هي إلهي هذا الكدولان خذر هاليليني ناهيك سمانتا وحي هوريتي هذا الكدولان خذر هاليليني هاهيك سمانتا وحي هوريتي هاتني ودنا إلهي شيء هاتني ودنا إلهي شيء هذا المعاني هلا وناقي هلا وناقي هذا المعاني هلا وناقي إلهي شيء ما هي إلهي شيء أظن إهيفين إنا هروفين نا أهب سمانتا دبتن إهايسو أذبون إهيفين إنا هروفين ويهب سمانتا دبتن إهايسو هاتني ودنا إلهي شيء هاتني ودنا إلهي شيء هذا المعاني هلا وناقي هذا المعاني هلا وناقي إلهي شيء ما هي
وحهبالا ونذهرين هدي أدنى بدا هقدر كتورتو نا نفسي هبين دحي إندي ليسي هاتني يدنا إلهي شيء هاتني يدنا إلهي شيء runtii waan hubaa in ay dad badani inta koorska kula qaadayeen haddaan si aanan islahayn wax la yidhaaha maahe sida dameerahaydin oo cabaadi waan kula qaadi lahaa ma idris waad qaadi kartaa laakiin mushkilada bas ilaaweyo uleedo inay waxba ay hor yihiin waa sida waan xasuustaan sheegay maxaa dhacay markaa dabadeed talaad inta qaaday isla markiiba dawaa isku soo boodnay waxa iga furatay heestani aroortii oo garnaqsi iyo odayaal iyo wan la keenay iyo xaal iyo neef la qala iyo qaal mushkilad badan bay iga furato markaan iyadoo sariirta iga soo horjeeda ka ooyeysa aan ugu dhuftay bayaan dee anu waan siray ilaa waxoogaa ilmi iga yimaadeen labadii ilma isu timi waan isqabanay halkii baan ku helay alxamdulilah haddaanu heesaa wada ahaan lahayn sidaas umaanu iska yeeli lahayn oo dadkan waa la soo ururaya iyo awrba awr jiira iyo dadba maanta la kala maslaxaya iyo waxoo dhaniba waa iska dhammaan lahay laakiin dee waa hibe ilahay dadka kala siisiiyo ma dhunkatay kamankaaga markaa cumar maba sii daayay maan dhunkaday mise sidii baan weli haystaa ku dheganay waa tay cumar hadda bal dhinac kale aan qaata oo waxa weeye cumar caruur badan ayuu leeyahay oo ku kala maqan dibadda iyo dalka dibaddiisa iyo waxyaabo badan sidaasi darteed cumar waxa uu leeyahay kubad ahaan haddii loo dhigi lahaa oo ay ciyaari lahaadeen laba kooxood oo iska soo horjeeda aad baa mahad ilaahay oo tahay cumar intaasi wax kalaa jira oo cumar run ahaantii aan isagana u ogahay oo aan qaadan karaya cumar mar kasta oo uu heesaha qaado dadku intiisa badan waxa ay u shawakhaan kamanka iyo qaabka uu qaadayo aan qadar cumar idhaaho sida tan oo ah waxyaabo aan taariikh ahaan anagu ka hayo cumar waxa uu ahaan jiray marka adeegto ninka aad arkaysaa nin soo jeed badan leh markaasaa ileen dumarkuna haweenku waa dhibaato fara badan yihiin dee waxbaa dhaca cumar sheekooyinkaagan baa aniga qudhayda run ahaantii ii taabanaya taariikh ahaan markaan dib ugu noqdo muddadii faraha badnayd ee aynu saaxiibada ahayn sheekooyinkeenna dhammayn kari maayo laakiin heestan bal hadda wax garaac waan anigu waan xasuusan doonaa waxay waa heestii waaq la'aan baxay saaxiib aad baad xusantay walaas xasuustaydu waa taan iska dhaxay cumar waxa weeye markii aan taa qaatay iyada qudheeda mid baa jirtado wuxuu yara dareemay malaha xoogaa dib u dhac ku yimid markii gacala ay arrintoodu abaabulkeedu jireen markaasaa waxaa dhacday arrin socotay ubad la yeelay xoogaa isqardoofi marmarka qaarkood sidaan horeba u sheegay dee ways waan oran karayaa dee carabiya labadiisii daanba isqaananiyo maalin baa dhacday cumar gacalo ay yara fogaatay waxay u fogaatay burco markaasaa waxaa dhacday inuu jiri maxaad yeeshaa haddaba tala kugu caddaataye maantay kugu daran tahay ma baabuur baad raacdaa miyaad lugaysaa ma kamankaa kaasii jabi intaasi miyuu furfurani cumar waxaasoo dhan baa ku soo baxay markaasuu is yidhi alla ilaha fariinuun iska far oo waxaad tidhaahdaa goormaan isweeshan doonaa wehelkii burco cumar heestaan u qaaday habeenkaas عدلان وياها بيايو مركي
kuwaaye waa sheeg hadmaynu isweeshan doonaa markii aan kuwaaye waa sheeg hadmaynu isweeshan doonaa wahay waa qalaalo baxayo cidlaan way ahaadaya wahay waaniga wakinaye intaan wiqmay weehanaage wahay waaniga wakinaye intaan wiqmay weehanaage intaan wiqmay weehanaabin u bahadi waraysigaage intaan wiqmay weehanaabin u bahday waraysigaage u bahday waraysigaage hadmaynu isweeshan doonaa naa u bahday waraysigaage hadmaynu isweeshan doonaa hoy hoy wahay waaqlaalo baxayo adlaan way ahaadaya waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waraanigaga taagtee waxyaha iyad jacaylku waabto wadnahad waraanigaga taagtee wadnahad waran igaga taagto warkayga caruurtu werisee wadnahad waran igaga taagto warkayga caruurtu werisee warkayga caruurtu werisee hadmaynu isweeshan doonaa warkayga caruurtu werisee hadmaynu isweeshan doonaa hoy hoy wahay waaqlaalo baxayo cadlaan way caadaya cumar gacantu kuma go'do saaxiibtinimadeennu runtii sida aad dadka daawadayaashaba aad saaxiibka u tihiineen caawa filaya inay si wanaagsan qof kastaba haddii kuu ducayn lahaa haddaanu nahay odayaashii hore haddaanu nahay dhallinyarada maanta ee muusigaaga aad u jecel laakiin aan anigu nin yidhi dad iska saariye aan saaxiibtinimadeenna caawa mid iska qaato waa saaxiib hees baan kaa doonaya waa ku saaxiib kama kay soo qaad gacanta ku qabso waa ku dheganahay aad baad u mahadsan tahay kalgacalka faraha badan lee heestii xaafuun ayaan doonaya xaafuun wallaahi iyada lafteeda waa kolahay siraadkayn daacad subaxiyo siraadkayn
ubaxay yoosayro la riday alla sidoo tahay mahasayro la riday hoy hoy sidoo tahay heliya aboan daace dulkumay maygu dhow yahay sifadexda sabar yarweeyano sifadexda sabar yarweeyano allah habla sebenkay hoy hoy usidatay Allah habla sebenkay hoy hoy usidatay heliya aboan daace dulkumay maygu dhow yahay أنا كل يوم نكسر إدرس وطن وهسي جري وتومي جري dadku kuma yaqaan baan mareynaya sax aan ku dhameystiro intaas madal wada heestii sax arintaas ay tiin marka laan ku ka wareysan doonaa waa qayb kale iyo Umar